السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. داودي القضبة أدوركنا في نمكم أغلي دونتانا وحاكمدا kooxda TPLF oo weerarkii ugu cuslaa maanta ku qaaday saldhigyada ciidamada militariga Itoobiya ku lahaayeen gobolka Axmaarada. sidoo kale dagaalkii ugu xooggan ayaa wuxuu ka socdaa saddex magaalo oo ka tirsan gobolka Axmaarada sida Debretabug, Gashima, Milinefasa. sidoo kale qodobada aad wararkeena fiidnimo ku maqli doontaan waxaa kamid ah xiriirka Turkiga iyo Itoobiya si xoogaysanaya, Imaaraadka oo ka xanaaqay xiriirka u dhaxeeya Itoobiya iyo Turkiga. sidoo kale qodobada kale aad maqli doontaan waxaa kamid ah jabhadda OLF oo sheegtay inay soo bandhigi doonto ciidamo badan iyo hub culus ka qabsatay militariga Itoobiya. daawadayla taariikhdu waxay ku beegan tahay 22 bisha 8 2021 haddaynu u guda galno wararkeennii oo faahfaahsan. kooxda TPLF ayaa weerarkii ugu cuslaa waxay ku qaadeen maanta saldhigyo ay leeyihiin ciidamada Itoobiya gobolka Axmaarada. ciidamada huwanta ee la dagaalamaya TPLF ayaan maanta ku qaadnay dagaalo culus waana guuleysanay. kooxda TPLF sidoo kale waxay sheegtay inay gebi ahaanba soo afjartay maanta meelihii ay weerartay, hubkii iyo wixii yaalina gebi ahaanba ay gacantooda ku jiraan. sidoo kale kooxda TPLF ayaa waxay sheegtay inuu hayaankeedu iyo ujeedadeedu uu yahay hadda magaalada ku magac dheer Gondar. sidoo kale kooxda TPLF ayaa waxay sheegtay in hadda laga bilaabo cid kasta oo la socota huwanta ayna cafeenin. sidoo kale TPLF waxay sheegtay cid kasta oo ay ku tuhunto in ay la shaqeynayso kooxaha ay dagaalka kula jirto inay qudha ka jari doonto. shacabka Axmaaradana waxay ugu baaqday inay isdejiyaan aynana u arkin kooxda TPLF inay yihiin cadawgooda koobaad. hase yeeshee uu cadawgooda koobaad u yahay Abiy Ahmed iyo kuwa la shaqeynaya oo ka talinaynin maslaxada dalka Itoobiya. sidoo kale Abiy dagaalkii ugu cuslaa ayaa waxa uu ka qarxay maanta gobolka Axmaarada. magaalooyinka oo maanta dagaalka uu culus ka dhacay waxaa kamid ah Debretabug, Gashima, Milinefasa. sidoo kale militariga Itoobiya ayaa waxa uu sheegay inuu maanta dagaalkaasi ku jabiyay kooxihii weerarka ku soo qaaday una howlgalka sii wadi doono ilaa uu gacanta kaga soo dhigo kooxihii weerarka soo qaaday. magaalooyinkan maanta dagaalka culus ka dhacay ayaa waxaa horay gacanta ugu hayay kooxda TPLF. kooxda TPLF oo gacantooda laga saaray maalinimadii shalay ayaa maanta weerar rogaal celin labaad waxay ku soo qaadeen 3 magaalo. hase yeeshee wax cadeymo ka madax banaan labada meelood inay hadda militariga gacantooda ku jirto ama kooxda TPLF ma hayno, laakiin waxaa la sheegayaa dagaalka ka qarxay maanta 3 magaalood inaan loo kala kicin oo ka dhacay meeshaas xasuuq bini'aadamnimada ka baxsan. ilaa waqtigan lama soo sheegin cid gacantooda ay ku hadhay dagaalkulaas wali uu socda. kooxda TPLF ayaa waxay isku dagaysaa inay markasta deegaano cusub qabsato oo inta ka sii dambeysana ay ku sii durugto gobolka Axmaarada. afayeenka TPLF ayaa ahayd markuu xalay uu yiri anagu go'aankanagu wuxuu yahay hadda laga bilaabo inaan magaalada Gondar iyo wixii ka shisheeyaba qabsano oo na u joojin doonin mar dambe hadalka dawladda federaalka ama kooxaha uu yeeray camaasiirta ku habsaday wadanka Itoobiya. afayeenka TPLF ayaa xalay waxa uu sheegay in ciidamada TPLF amar lagu siinayo in 3 bari gudahood ay magaalada Gondar ku gaaraan, wixii ka dambeeyana laga tashan doono meesha looga dhaqaaqi doono. dawladda federaalka ayaa xalay waxa ay sheegtay inay saraakiil badan oo TPLF qabatay. hase yeeshee kooxda TPLF mayna wax war ah ka hadlin kana soo saarin saraakiisha ay sheegatay dawladdu inay qabsatay inay dhabtaayeen kale. hase yeeshee TPLF waxay ku sii hanjabaysaa in ay qabanayso magaalooyinka waaweyn ee Axmaarada. hadday u suurta gasho kooxda TPLF inay qabsato magaalooyinka waaweyn ee Axmaarada sida Gondar iyo Baxardaar ayaa waxay dawladda Itoobiya ay ku noqon doontaa inayna xakameyn karin kooxda TPLF. maxaa yeelay magaalooyinka haddii kooxda TPLF gacanta u galaan waxa ku xiga waa caasimadda Addis Ababa ee meeshii dalka laga maamulayay. TPLF hadday magaalada Gondar iyo Baxardaar qabato ma sii jiri doonto dawlad xooggan oo Itoobiya oo la dagaalami karta TPLF. maxaa yeelay gobolka Axmaaradu muhiim wuxuu yahay wadanka Itoobiya wuxuuna isku xidhayaa gobollo badan oo dalka Itoobiya.
sidoo kale dagaaladan culus ayaa waxay ku soo beegmayaan xilli uu xiriirka dalka Turkiga iyo dalka Itoobiya si fiicnaanayo oo dagaaladan culusna ay ku soo beegmayaan soo laabashadii ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya uu ku soo laabtay dalka Itoobiya soo laabashadii ra'iisul wasaaraha waxa soo baxaysay inay guulo gaarayaan militariga Itoobiya oo inay sheegayaan saraakiil iyo inay soo qabteen ciidamo badan oo ka barbar dagaalamayay kooxda TPLF xiriirka Turkiga iyo Itoobiya ayaan ahayn kii ugu horeeyay hase yeeshee ra'iisul wasaaraha booqashadiisa ay dadka Itoobiya u fasirteen in uu ra'iisul wasaaruhu raadinayo caawimaad xagga ciidanka iyo militariga oo ama laga garabsiyo la dagaalanka uu kula jiro kooxda TPLF ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa waqtigii uu soo laabtay wuxuu isla habeenimadiiba ku baaqay shirweyne qaran oo dalka Itoobiya looga tashanayo hayaankiisa iyo meeshii loo hagi lahaa ama loo jahin lahaa ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya ayaa waxa uu sheegay bisha soo socota in la iskugu yimaado caasimadda dalka si looga wada tashado mucaarad iyo muxaafidba dalka Itoobiya dhibaatada ku jiro sidii looga saari lahaa sidoo kale warbaahinta madaxa bannaan ayaa waxa ay sheegaysaa inuu dalka Imaaraadka ka xanaaqay xiriirka ay yeesheen Itoobiya iyo Turkiga ee soo cusboonaaday dowladda Imaaraadka ayaa waxa lagu eedeyn jiray waqtigii dowladda federaalka ay weerarka ku qaaday kooxda TPLF inay ka garab dagaalameysay ama diyaarahooda sida gaarka ay u weerarayeen kooxda TPLF oo inay u fududeysay dowladda federaalka inay gudaha u gasho gobolka Tigreega ama ay qabsataba caasimadooda Maqala sidoo kale waxa la soo sheegayaa inay kooxda TPLF ay taageero aan la ogeyn iyo hub casri ah inay heshay wadamada ay ka heshay lagu eedeynaya kamid yihiin sida Imaaraadka Carabta Turkiga iyo Itoobiya xiriirkooda waxa la sheegayaa inay dawlado badan oo Carabta ka xanaaqi doonaan maxaa yeelay Carabta iyo iskuma fiicno dalka Turkiga sidoo kale Imaaraadka waxa la sheegayaa inuu hadda laga bilaabo garab siin doono kooxda TPLF hadda Imaaraadka taageero ka helaana ay ku adkaan doonto dawladda Itoobiya in ay hor istaagto xogaga TPLF sidoo kale jamhadda xoreynta Oromiya ayaa waxa ay ku dhawaaqday in ay soo bandhigi doonto ciidamo badan iyo hub ay ka furatay militariga Itoobiya oo maalmihii la soo dhaafayba ay dagaal xoogan ku haysay jamhaddan ayaa waxay sheegtay inay gobolka Oromiya gabi ahaanba ka sifayn doonto amaasirta ku habsatay dalka Itoobiya waa sida ay afkooda ku sheegeen amaasirtan ayaa waxay oo la jeedaan ra'iisul wasaaraha Itoobiya iyo xogaga garabka siinaya haba ahaadaan militariga iyo kooxo kale daawadayaal waxaan leenahay tan iyo kulanti dambe wanaagsan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh